Morgan waa hooyo single mother ah oo haysata 3 caruur. Morgan waxay habeenkii ka shaqeysaa xarunta booliska. Morgan oo shaqadeeda wadato ayaa si kadis waxay u soo ridaysaa box oo ku jiraan feelal. Marka ay damacdo Morgan inay toosiso feelasha, ayaa waxay arkaysaa sawir kiis dil ah nin la dilay kadibna xaaskiisa la afduubtay. Morgan ayaa waxay ogaanaysaa kiiskan inuu ku jiro qof saddexaad oo yahay dilaaga dilka geystay. Maalinka xigta waxaa iskugu imaanaya saraakiisha. Sarkaalkan ayaa wuxuu arkayaa kiiska in wax laga bedelay. Markaas ayuu saraakiisha wuxuu weydiinayaa yaa midaan sameeyay ayuu kiiska wax ka bedelay, laakiin saraakiisha way ka aamuseen. Waxaanaqaya sarkaalkan wuxuu leeyahay midaan qofku sameeyay waa inaan ogaada. Marka CC camera la fiiriyo, waxaa la ogaanayaa habeenkaas in Morgan ee meesha ay joogtay. Sarkaalkan ayaa wuxuu leeyahay Morgan waa in isla keenaa saldhigga. Maalinka xigta waxaa imaanaya guriga Morgan. Sarkaalkan wuxuuna leeyahay waa in loo raacdo saldhigga booliska. Morgan waxaa la keenayaa saldhigga booliska. Wuxuuna sarkaalkan ku leeyahay maxaad kala socotaa arrinta dilka, sidee baad ku bedeshay baltilmaameedka ayuu ku leeyahay. Morgan isla markaa waxay bilaabaysaa in askarigan ay u sharaxdo. Waxay ku leedahay marka hore waxaa laga yaabaa in la afduubtay ninka la dilay xaaskiisa kadibna lacag madax furasho la weydiiyey. Waxaa kaloo laga yaabaa in ninka la dilay kadibna xaaskiisa la afduubtay. Waxay leedahay kiiskan qof saddexaad ayaa ku jiro. Morgan intii hadalka sii wadatay ay waxaa imaanaysa askariyadan waxayna u sheegaysaa guriga dilka oo ka dhacay in maalinkaas qof oo soo booqday. Sarkaalkan ay wuxuu ku leeyahay Morgan waa in la xiraa maadaama ay soo fargashatay arrin u taala booliska. Morgan ayaa askarigan gacanta qabanaya. Morgan ayaa dhihiisa waan aqaana si loo istaago. Askarigan ayaa gacanta ka sii daanayay Morgan. Waxay daawanayaan muuqaalka guriga dilka oo ka dhacay CC camerada ee duubtay haweeneyda soo booqata guriga in ay u yeeraan haweeney lagu magacaabo John oo hore ugu shaqayn jirtay dibanaha. Waxayna weydiinayaan waxay ka qabanaysay maalinkaas guriga. Waxayna u sheegaysaa in maalinkaas ay joogto guriga ayna guriga ay ka shaqaynaysay. Waxayna u sheegaysaa maalinkaas in meesha oo ka dhacan dil. Askarigan ayaa dhahay sidee baad ku cadeyn kartaa midaasi. Morgan ayaa la sii deynaya. Inta ay banaanka u sii socotay ayaa waxay arkaysaa saraakiisha oo ka hadlaya arrinta John. Waxay fiirinaysaa muuqaalka waxayna ogaanaysaa muuqaalkan in uu yahay muuqaal fake ah. Waxayna ku leedahay muuqaalkan waa mid fake ah. Morgan warqadan ayay saxiixaysaa. Morgan ayaa meesha ka tagayso. Inta ay sii socoto ayaa sarkaalkan Morgan celinayay. Waxayna ku leedahay qaabkaad wax u sheegto waa in aad sharaxdaa waxa aad ka wado. Markaas ayay Morgan waxay u sheegaysaa muuqaalka in labada dhinac ay dabeesha ay ka imaanayso. Waxayna leedahay xilliga deelta iyo xilliga go'a in ay kala dabeel tahay. Sidaa darteedna yahay muuqaalkan muuqaal goor hore la duubay oo yahay muuqaalka saxda ah. Askariyadan ayaa waxay leedahay hadalka Morgan ay sheegtay waa sax. Morgan meesha ayay ka soo tagaysaa. Askariyadan ayaa ka daba imaanayso. Waxayna bilaabaysaa in ay la doodo. Waxayna ku leedahay sidee baad ku ogaaday midaan. Morgan waxay u sheegaysaa waxaan inay ku xil dheer tahay inay aqoon buuxda u leedahay. Dhanka kale baaraha ayaa wuxuu la kulmayaa gabadha dibinaha. Waxayna u sheegaysaa toddobaad ka hor in ay geeriyootay hooyadeeda. Markay aaga timid warqad sir ah haweeney lagu magacaabo Sarah. Warqadda markay akhrido hooyadeeda kadibna ay isdishay. Askarigan ay wuxuu go'aan ku gaarayaa inuu ogaado warqadaasi. Haweeneydan waxay leedahay warqadaasi waa in aan ogaana. Waxayna go'aan ku gaarayaan in haweeneyda maqan xafiiskeeda laga raadiyo warqadda. Taliye ku-xigeenta waxay garab weydiisanaysaa Morgan inay kiiskan la xaliso. Morgan baaraha kiiska waxay u sheegaysaa qof walba oo kiiskan ku lug leh waa in aan waraysi aan la yeelanayo ku leedahay. Waxaana la keenay saldhigga gabadha maqan walaasheeda. Morgan ayaa su'aalo weydiinaysa. Inta ay su'aalaha socdaan Morgan waxay ogaanaysaa gabadha maqan walaasheeda in ay taqaano cilmi nafsiga. Waxayna ogaanaysaa sidaas darteeda booliska in ay ka qarinayso waxyaabo badan. Morgan markay u sheegto baaraha kiiskan aad ay ugu xanaaqay ayada. Baaraha kiiska ay wuxuu imaanayaa haweeneyda maqan xafiiskeeda. Waxaana ka codsanaya in uu baaro qolkeeda. Wuxuuna leeyahay waxaan ka raadinayaa warqad la laayahay laakiin waa laga diidayaa. Morgan ayaa waxay soo galaysaa xafiiska haweeneyda la laayahay ayadoo iska dhigaysa kalkaaliso. Waxayna gudaha u galaysaa xafiiskeeda. Waxay ka soo qaadaysaa warqadda. Waxayna u keenaysaa askarigani. Marka ay tusto warqad inay ayada hayso ayuu askarigani ku xanaaqay. Wuxuuna ku leeyahay midda aad samaysay waa qalad soo ma oga in lagu xiri karo. Waxay leedahay iska daa taas adiga warqadda waa in aad akhrisaa. Waxayna u sheegaysaa kiiska Sarah in uu yahay barbardhac. Waxay leedahay qofka warqadda qori ayaa waxaa soo weeraray qof xoog badan oo lagu magacaabo Brian. Waxaana laga yaabaa haweeneyda maqan in uu rabay in uu ku soo daro kiiska si ay u soo dacweyso ninkaani. Baaraha kiiska ayaa wuxuu u sheegayaa Morgan in warqadda halkii ay ka soo qaaday dib ay ugu celiso. Baaraha kiiska wuxuu u wacayaa si uu su'aalo u weydiiyo laakiin Brian su'aalihiisa wuu diiday in uu ka jawaabo. Askariyadan ayaa alaabta Brian waxay ka dhex arkaysaa in Brian maalinka uu dilka
dilka dhacay oo ka maqnaay magaalada oo ku maqnaay falaanta sidaa darteeda dilka meesha ka dhacay agaaraheedaba inuu ka dhaweynin Bran mideeda kale waxaa imaanayo madaxa xafiiska haweeneyda maqaneed wuxuuna ogaanayaan in warqad laga soo xada xafiiskooda ayna soo xada haweeneyda Morgan waxaana dacwad ka soo gudbinayaan Morgan askariga markuu midaan ogaado Morgan wuxuu u sheegayaa shaqadan in ay faraha kala baxdo ay shaqada nolol maalmeedkeeda ay ku laabato maalinkii xigta waxaa guriga Morgan soo booqanaya baaraha kiiska si uu ogaado Morgan cidda ay ka shakisan tahay Morgan waxay baaraha u sheegaysaa alaabta Bran waxa laga helay in ay tahay waxyaabo qaldan waxaana u sheegaysaa falaanta in ay tahay meel loo damaasho tago dadkan ay ku caawiyaan waxaana leedahay Bran midaas dabeecad uma laha ay ku leedahay mideeda kale waxay u sheegaysaa in ay ka shakisay gabadha maqan walaasheeda waxaana u sheegaysaa gurigeed in ay ka hesho alaabta lagu damaashaado in ay ka hesho gurigeed ay ku qoran tahay falaanta waxay ku leedahay Bran iyo gabadha maqan walaasheeda waxa ka dhaxeeya xiriir darteeda waxay leedahay waxaan ka shakiyay labadooda mideeda kale waxay u sheegaysaa in uu dilka goor hor oo dhacay laakiin laga dhigay dilka in uu dhacay mar dhow sidaa darteeda ay ku marhabaabanayaan fadlan hilmaama in aad furato calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino muuqaalkan la gala share galay asxaabta la wadaag intaas waxay noo tahay dhiirigelin Morgan baaraha waxay u sheegaysaa intay sii socdeen kiiskan in waxyaabo badan ay ka qaldan yihiin ayna rabto inay ogaato waxyaabaha kiiskan ka qaldan la soco Part 2